Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan baa khiyaarta kusoo dhawaada barteena YouTube-ka ee Hargeysa Trade House, halkaasoo aynu ku wadnay casharadeenii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay forex trading ama sida looga shaqaysto forex. Labadeenii video hore waxaanu mid kaga soo hadalnay introduction-kii waxaanu qaban doono, kii u horeeyay kii labaadna waxaanu kaga hadalnay forex wuxuu yahay. Marka qodobadaynu ka soo hadalnay waxaa ka mid ahaa forex wuxuu yahay suuqan siduu u shaqeeyo, dadka dhaqaajiya, xaddiga lacageeda lagu kala qaato, iyo muxuu ahaayey sida loo xisaabiyo faa'iidada iyo khasaaraha oo aynu gadaal ku eegi doono. Haddaba waxaan ugu talagalnay fiidiyowadan ugumaynaan talagelin inaynu deg wax kasta saa u dul marno kadibna muxuu ahaayey aynu meel sare ku boodno, laakiin waxaan ugu talagalnay qof kastaaba inuu basic ama foundationka aasaaska inuu soo fahmo. Waana sababta aanu muxuu ahaayey weli u wadno inaanu notice ama weli aynu PDF ku wadno, waxaan ujeedaa aynu presentation weli ku jeedinayno. Marka insha Allah casharkan maanta waxaanu kaga hadli doonaa, kulli waynu gaari doonaa casharada dambe, waynu sameyn doonaa technical analysis dad badan isoo weydiinayaan iyo sida loo sameeyo price actionka, indicatorska, fundamental waxyaabihii oo dhan insha Allah waynu ka hadli doonaa. Laakiin maanta waxaanu bil eegi doonaa waxa la yidhi alifkaad ka boodta albaqro ku dhibaa, marka waxba kama boodayna insha Allah. Qof kastoona waxba si yaroo simple isaga soco, maalinba wax raadi, wax hal mar la helaa ma jirto sababta cilmiga forex-na wuu ballaaran yahay. Marka haddii aad basic ka adkaato iyo siduu suuqan isu bedelo, wax ku dhibi doona insha Allah ma jiri doona. Marka maanta waxaanu ka hadli doonaa qodobo dhowra, maadaama inuu suuqan aynu ka hadlaynaa uu yahay suuq sarifeed oo aad u weyn, oo waxa la sarifayaan ay yihiin lacago kala duwan. Marka lacagahaasaynu eegi doonaa. Marka lacagaha laftarkoodii baa kala duwan. Marka koowaad waxaanu eegi doonaa currency pairs, laba lacag isu raaci doonaan. Kadibna waxaynu eegi doonaa waxa la yiraahdo major currencies-ka kuwa waaweyn ilaa 8 lacagood. Kadibna waxaanu eegi doonaa minor currencies-ka, major currencies-ka iyo sida iyagu isu raacaan iyaga laftarkoodu. Marka kadibna waxaanu eegnaa exotic currencies, kuwaasi oo ah lacago iyaguna aynu eegi doono xagga dambe aynu ku eegi doono casharkeen. Kadibna waxaanu eegi doonaa sida loo xisaabiyo movementska dhaqaaqa uu suuqu sameeyo iyo waxa la yiraahdo pips baa waxa ugu yar suuqu dhaqaaqo sida loo xisaabiyo, taasi oo goor ku sahlaysa inaad muxuu ahaayey faa'iidada iyo khasaaraha aad si fudud u xisaabin kartid. Marka maanta waxaanu kaga hadli doonaa waxa ugu muhiimsan ee kaga hadli doonaa casharkeena waxa weeyaan sida loo xisaabin doono dhaqaaqa, taasi oo aad muhiim ku ah. Waayo goorow markaynu software-rada dhex tagno aynu isniraahno xisaabiya khasaarihii iyo faa'iidada, waxaanu u baahnaan doonaa inaynu eegno suuqan imisuu dhaqaaqay, imisaan faa'iiday, waxyaabahaas inuu eegi doona. Marka casharkii kan ka horreeyay very basic buu ahaa, forex aynu kaga soo hadalay wuxuu yahay, kanna waxoogaa baynu ku yara dari doonaa. Haddaba muxuu ahaayey national currencies-ka waxyaabahan la yiraahdo ama lacagahan adduunku, waddan kastaba lacagtiisu horta suuqan intaad dhex joogto 3 xaraf bay ka koobnaan kartaa. Iminka tusaale ahaan lacagteena horeysa EUR baa ku qoran, marka waxay u taagan tahay euro, ayay u taagan tahay euro. Marka waa lacagtii eurada weeyaan, soo ma fahmin? Euro la yiraahdo lacagta Yurub. Lacagtana waxay u taagan tahay waa GBP. wax kale maaha. Labadan hore waxay sheegayaan magacii waddanka Great Britain, tanna waa magacii lacagta. Marka simple waxaad fahantaa tan oo kale waa United States dollar, tan oo kale waa New Zealand dollar, tan oo kale waa Japanese yen. Marka lacaguhu waddan kastaba lacagtiisa waxaad arki doontaa intaad barnaamijkan ku dhex jirto, waxaad arki doontaa waddan kasta lacagtiisu inay 3 xaraf ka koobnaan doonto, 3 xaraf inay ka koobnaan doonto. xagga dambe barnaamijkan ku eegi doonaa siday isu raaci doonaan lacaguhu, laakiin waxaad niyadda ku haysaa
in lacag kastaaba ay 3 xaraf ka koobnaan doonto muxuu ahaayey goordhowna xaggan aynu ku eegaynaa insha allah. marka waa kuwan currency pairs waxa la yidhaha jira macnaha maadaama aynu nidhi halkii lacagba 3 xaraf bay ka kooban tahay waxaynu laba lacagyo bay isu raaci doonaan. iminka tusaale ahaan oo kale haddaad dee sarif la tegeyso oo tidhaahdid lacagii sarif, adigu lacag baad sidataa, lacag kalena kugu bedelaya. kasoo qaadba dollar baad sidataa, dollarkii baad ula tagtay, ama sidan ba haddaynu nidhaahno dollarkii baad ula tagtay. dollarkii markaad ninkii ula tagtay sariflaha isagii muxuu kugu bedelaya? shilin buu kugu bedelaya. haye maxaa la isku bedelay? laba lacagyo. kanna waa sidii un sida aynu horeba usoo sheegnay, waa sidii oo kale un. marka iminka tusaale ahaan oo kale markay lacagta dollarka iyo israacaan lacagta la yidhaahdo euradu ayaa waxaa la odhanayaa euro USD baa la odhanaya. markaad calaamadda aragto symbol baa la yidhahdaa. markaad calaamadda aragto markaa waxaad garanaysaa in tani ay tahay lacagtii eurada oo lagu bedelayo dollar inay tahay, ayaad simberi garanaysaa. marka muxuu ahaayey kuwan oo dhan waa lacagta ingiriiska boonkii oo lagu bedelayo lacagtii dollarka, US dollar kaadkii oo lagu bedelayo tii dollarka. marka imika waxaad arki doontaa Canada dollar bay isticmaashaa, iyada laftirkeedu Canadian dollar baa la yidhahdaa. US dollar bu isagu laftirkiisu isticmaala US dollar. New Zealand oo kale New Zealand dollar bay isticmaashaa. magacyo kale leeyihiin way jirtaan, laakiin waxba muhiim aha. adigu kaliya tan waa inaad imika waxaan u baahan in aad fahanto qaabka ay isu raacayaan lacaguhu. marka imika haddaad meel ku aragto lacag san oo kale u qoran ama sa kuwan u qoran, waa inaad simbeli macnaysan kartaa. waa laba lacagyo, tani waa lacag boonkii weeyaan, tanna waa New Zealand dollarki. simbeli inagu intaasoo khaliya ayaynu u baahannahay basic ahaan. waxa dambe gadaal baynu kaga hadli doonaa insha allah. qodobka ku xiga diintan la fahmay waxaynu kaga hadli doonaa waxa la yidhaahdo major currency pairs. haddaba lacagii baa inoo kala qaybsami doonaa. waxaa la yidhaahdaa waa ilaa muxuu ahaayey 8 lacagyo ayaa ugu waaweyn. 8 dal waxaa ka mid ah Europe, Britain, Australia, New Zealand, Canada, Japan, Switzerland iyo Mareykanka. marka Mareykanku major currencies-ka waa 7 wadan oo Mareykanka lagu daray 8 bay isku noqonayaan. 7 lacagyo ayaa mid kasta dollarka la raacinaya. marka waxaa jira wax la yidhaahdo 7 major currencies. 7 major currencies waa 7 lacagyo ee ugu waaweyn weeyaan. 7 lacagyo ee ugu waaweyn iyaga laftarkoodu way marka transactionkii waxaa la eegaya si loo trade gareeyo way kala baaxad badan yihiin oo xaggan sawirkan aynu ku eegi doona. laakiin waa ina fahantaa 7 lacagyo ee ugu fiican ee 7 major currencies-ka la yidhaahdaa waa 7 mid kastana dollar baa la socda. 8 dal ee ugu muxuu ahaayey major currencies-ka lahaa ayuu mid kasta dollarku raacaya. kadibna waxay noqonayaan 7 major currency bay noqonayaan. waayo tii eurada, tii pound iyo US dollarka, Australian dollar iyo US dollar, New Zealand US dollar. marka waa simply 7 lacagyo ayaa la yidhaahdaa. halkan waxaad arkaysaa sida muxuu ahaayey volume-kooda. euro USD ayaa waxay ku leeyihiin kolley markasta waa la update gareeyaa. waxaan laga yaabaa inaanu muxuu ahaayey sawirkani keliya xitaa aanu saxba ahayn, laakiin volume-ku isbedbedelaa. markaa kasoo qaad tusaale ahaan euro USD oo keliya volume-keeda iyo transactionskeeda ayaa waxay leeyihiin lacagaha intii kale oo dhan. macnaha kuwaynu ka hadli doono goorrow minorskii way soo gelayaan exotic wixii oo dhan. iminka US dollar Japanese oo kale waa iyo poundku iyaga laftarkoodu aad ayay u bahan US dollar Japanese iyo pound US dollarku labadan waana lacagaha inta ugu badan dadku trade gareeyaan. lacagaha inta ugu badan dadku trade gareeyaan. halkan oo kale waxaad arkaysaa US dollar. marka waad fahmi karaysaa euro USD iyo US dollar Japanese iyo GB USD majoriska kaliya. waxaan rabnaa inaad fahanto lacagahan major currencies-ka la yidhaahdaa aad bay u baaxad badan yihiin ama aad baa loo trade gareeyaa. markaad muxuu ahaayey eegaysid volume-ka iyo waxyaabahan markaad eegaysid waad raadin karaysaa muxuu ahaayey kulli dee sanad kastana way isbedelaan lacago muxuu ahaayey imika waqti xaadirkan lacago aada u volatile baa jira. marka lacago waxaa isku goorramaynu ka hadli doonaa. waxaa jira wax la yidhaahdo volatility. lacaguhu way kala volatility badan yihiin. macnaha qaarna waa low volatile,
qaarkoodna waxay noqon doonaan high volatile bay noqon doonaan oo xagga dambe ku eegi doona. Minor currencies waxa weeyaan one currency pair does not include the US dollar markaanay ku jirin ayaa la yidhaahdaa minor currency pairs ama cross currency pairs. Iminka New Zealand iyo bunku waxay kamid ahayn major currencieski, laakiin dollar iminka lama socdaan, labadooda isla socda. saasoo kale la oranaya waa eurada iyo bunki israacay, eurada iyo lacagta yenka Japan israacay, Swiss franc iyo Japanese yen israacay, GBP. marka lacagahaasi markay isu tagaan kare majorka ayaa waxa la oranayaa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa minor currency pairs ama cross currency pairs. marka waxa weeyaan iyaga laftarkooda qaar high volatile baa jira, qaar kuwa majorka aan waxba ka dhicin baa jira. marka waa kaliya taad waxaad u baahan tahay inaad kala fahanto maxay kala yihiin minorku, maxay yihiin majorku, maxay yihiin kuwa exotic. kaliya tan waxay muxuu ahaay goor waxay ku kala duwanaanayaan de waa volatility oo lacagaan dhaqaaqin adigu waxba ma gelaysid. imanka kuwa exotic oo kale spreadkooda aad buu weynaan doonaa, de way adkaanaysaa inaad trade garaysid. laakiin markaad major euro USD oo kale trade garaynayso waqti kasta waa iyadu way fiican tahay, waxaan laga yaabaa in spreadkeedu aad u yaraado. exotic kuwa la yiraahdo waxa weeyaan waa major currencieski oo la raaciyay, waxay wadamada macnaha adigu aan aad lacagahooda loo trade garin ama kuwa soo koraya South Africa iyo Brazil kamid yihiin. marka waxaa jira wadamo waaweyn oo xitaa developed oo hadana lacagahooda exotic yihiin oo aad loo trade garayn, sida muxuu ahaay China oo kale aad badanaa marka aad cid u trade garaysa. Turkiga kamida TRY, Hong Kong baa kamida dollar, Norwegian krone baa kamida, South African rand iyo Singapore dollar. marka lacagahan oo major currencieski raacay ayaynu oran karnaa waa exotic. marka badanaa wadamada maxaa developed aad qiimo u koraya muxuu ahaay ayaa lacagahooda lagu eega. waxa kale inuu adaba waxaan u baahanahay hadii la kala fahmay major currencies waxay yihiin, minor currencies waxay yihiin, exotic waxay yihiin. waxaynu eegi doonaa sidaynu u xisaabin lahayn waxaan la yiraahdo dhaqaaqa movementka. iminka tusaale ahaan oo kale suuqa waxaan arkaynaa waynu arki doonaa waxaan oo dhan way ku soo wari doonaa. saas hoos buu soo socday, kor buu yara noqday, hoos buu soo socday, kor, hoos, kor, kadibna kor ayuu socday. marka waxaan u baahanayaa inagu hadii tusaale ahaan oo kale halkan in trade ka galo oo faa'iidadeena aynu bartan ka qaadano, waa inaad si xisaabsan kartaa marka trade ka gasho intaad faa'iideysid ama intaad khasaaraha ku joojinaysid, waa inaad si xisaabsan kartaa. marka waa very simple muxuu ahaay horta waxaan fahmi doonaa waxa la yiraahdo pip oo ah wuxuu suuqu dhaqaaqiisa wax lagu xisaabay inuu eegi doono. marka imika halkan waxaad ku arkaysaa bibiska si aynu xisaabino lacaguhu way kala duwan yihiin. lacagaha qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo 1 point marka la qoro pointiga 4 digit ay xaggan ka xigaan oo kale, tusaale ahaan oo kale 4 digit, qaarkoodna 5 digit baad arkaysaa 5 digit. soo ma fahmin? marka waynu fahmi doonaa godka pipka laga xisaabinayo iyo godka kale wixii kala fahmi doonaa. waxaad arki kartaa oo kale lacagahan yenka ama Japanese iyagana waxaad arki doontaa iyagoo san oo kale u qoran, waayo muxuu ahaay lacag way kala duwan yihiin. iyada badanaa ama 2 number ba xaggan ka xiga ama 3 digit bay noqotaa, iyadana waynu eegi doonaa. marka imika tan hadii aynu ku horeyno lacagtan waa major currency, waa GBP US dollar weeyaan, waa lacagta Ingiriiska oo lagu bedelayo dollar lagu bedelayo. markan waxay mareysay qiimuhu wuxuu marayay halkii pound wuxuu marayay 1.35361 ayuu marayay, kadibna kor ayuu u tagay, kadibna wuxuu noqday hal wuxuu isbedelay pip, kadibna wuxuu noqday 7. hadaba godkan shanaad muxuu yahay peptide baa la yiraahdaa, waxa weeyaan pipkii oo la kala jajabiyay. kadibna markay halkaasi imika oo kale hadii halkaasi 9 noqoto oo mid ku biiro halkan 8 bay noqonaysaa, peptide weeyaan waa pipkii bay sii kala jajabiyeen. marka waxa ma aha muxuu ahaay wax isaga badanaa lama xisaabsado, aduu kaliya waa inaad xisaabsataa. hadaba markay lacagtu 5 digit markaad aragto ama 4 digit, godka afraad baa kuwa ka pipka ku xisaabtamaysid, godka afraad
ayaa kuwa kaad ku xisaabtamaysa. marka imika tusaalahan waxa weeyaan waa 1 2 3 4 waa digitka afraad ama godka afraad ayaad ku xisaabtamaysa. kaas ayuu bibku iska bedelaya. marka imika kale tusaalahan haday halkan noqotay 3537 hal bib buu isbedelay baad oranaysaa suuqan muxuu isbedelay hal bib ayuu isbedelay. haday noqoto hadaba ka waran 1.3546 haday noqoto ka waran kan haday noqoto ka waran waxaad u xisaabsanaysaa waxa weeyaan waa godkan imisa isbedelay labadan aad kala jaraysaa waxa macnaha kala jaraysaa labadan god ama intan iyo intan ba kala jar kadibna waxa ku soo baxaya difference-ka. imika waxaanu halkan nooga soo baxaya inuu isbedelay suuqani waxaanu ku muxuu ahay markaan labadan kala jarno halkan waa 36 kana 46 buu tagay 10 bib buu isbedelay 10 bib ayuu isbedelay bayna oran 10 bib ayuu isbedelay. marka waa simple waad xisaabsan kartaa waxaad samayn kartaa sidii muxuu traditional kala jarkii caadiga ah intuu qiimuhu isbedelay taweynu soo qaad 46 ka dhigo tan hoosana soo qaad tayar 1.35 waa sida ugu fudud oo xisaabsan kartid adoon cidnaba u baahan 36 kala jar waxaan kala dhammo waa 00 iska sanayaan halkan 10 ba kugu soo haray. marka waa very easy sa loo xisaabiyo muxuu ahay bibiska kaliya taad waxaad eeganaysaa godka afraad ayaad ilaashanaysaa intuu isbedelay haddaad doontana waad kala jari karaysaaba oo waxa weeyaan bibku wuxuu iska bedelaa marka lacagtu san u qoran tahay badankooda lacagu waa sidan wuxuu iska bedelaa godka afraad buu iska bedelaa. haddaba haddii aynu eegno tan cagsigeedu ah imika tusaale ahaan oo kale lacagtani waa yan weeyaan waa halkan dad ku arkayso waa lacagtii dollarka lagu bedelay Japanese yen time frame-kii waxa weynu eegi doonaa waa 1 hour ku mashquulin imika waxba halkan aynu muxuu ahay halkana suuqa ka soo qaadba buy baan ka yidhi waayo suuqa waxaan arkay inuu xoogaa soo dhacay kadibna waxyaabo badan oo eegayay baa waxa suuqii la noqday buy wii la noqday kadibna bartanaasaan bay ka yidhi kadibna suuqa kor buu tagay markuu bartaan marayay ayaan faa'iidadeedii ka qaatay. marka waxaad u baahan tahay inaad ogaato inta bibaad faa'iiday. haddaba markay lacagtu tahay lacagaha yanku la socdo imika kala tusaalahan waxaa inoo qoran 11475 0 baa inoo qoran kan iska daa labadan aad xisaabsanaysaa labadan kan waa halku bibkaagu iska bedelaya waa kan laba god waayo waa waxa iyadu way ka duwan tahay godka labaad ayaad iyada ku xisaabtamaysaa. marka imika markaynu u baahanay kan intaynu faa'iidnay sidii yareedan ku sheegay labadan uu kala jar kan kalena muxuu ahaa 113.600 haddaad kala jarto halkan 0 iyo 0 waa 0 halkanna muxuu ku noqonayaa hadaad inta soo qaado labadan haddaad kala jarto macnaha haddaad ka jarto 5 eber haddaad ka jarto waa 5 waayo waa 620 halkan de 620 labadana kala jar waa 1 labadana kala jar marka waa 1 marka waxaad arkaysaa simply intuu isbedelaad arkaysaa waa 115 ayuu isbedelay bib teeda kale waad ku xisaabtamaysaa waayo waxa kaliya ta difference qiimuhu badeegaysa qiimayaashu waa kuwa halkan kugu qoran halkan waa kuwa kugu qoran haduu kaliya ta waxaad xisaabsanaysaa deegaysaa waxa weeyaan imisu qiimuhu isbedelay. imika garaafkan waxba ku dawaqin waxa taqaanay garaafkan waa xagan waa time bay ku tahay xaganna price bay ku tahay dadka xisaabta ku fiican ama garaafyada xagan way access-kaaga waxa isu kordhaya oo isu bedelaya price-ka time-kaaguna wuxuu isu bedelaya dhanka egastaadu isu bedelaya halka kana wayda tan markuu garaafka san u sameysmo time-ku waa natural adigu ma controlis time-ku isaga socdo laakiin waxa isbedbedelaya waa qiimaha isbedbedelaya qiimaha ayaa isbedbedelaya kadibna adoo qiimuhu markasta meeshu marayo de garaafkan u baad akhrisanaysaa marka halkaas u marayay markana halkan labadan qiime maxaa u dhaxeeya simply intaas aad marka dhaqaaqu sameeyay tan waa 115 bib ayuu samaysay lacagtan goorobeynu muxuu ahaa markaynu aragno markaynu eegayno faa'iidada salo xisaabiyo akoonadu way kala duwan yihiin marka markaynu akoonada ka hadlayno ayaynu bibiska markaad fahantid markaasaynu sheegi doonaa intaad ka faa'iidaysid lacagta aad ku gashid iyo waxyaabaha markaasaynu eegi doonaa muxuu ahaa casharkeenu intaas maanta inoogu dhan yahay
keliyata waxaynu ka hadalnay practice garee, akhri inaguna sida ugu dhaqsiyaha badan insha allah casharadeena muxuu ahaayey waanu soo dedejin doonaa. wixii su-aalaad qabto iyo wixii kalaba waadna soo weydiin kartaa. waxaan rabnaa inaad step by step usoo fahanto adan waxba ka boodin. muxuu ahaayey maalmaha soo socda heer waxaynu gaari doonaa chartiska aynu analyse garayno step by step insha allah. marka aad baad u mahadsantihiin. la wadaaga asxaabta kale channelkeena, share dhaha, comment ka soo bixiya waxayd fahmi weydaan. hoostana waxaan idiin soo dhigi doonaa descriptionka channelkeena telegramka iyo ka whatsappkaba iyo nambarada nagala soo xiriiri kartaan haddaad u baahataan wax caawinaada. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi